الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولا ليال waxaynu halkan ku tilmaami doonaa 6 cuquubo oo ka dhasha qofku inuu xoolo xaaraana ku intifaaco marka hore dunuubta waaweyn oo khatarta waxa kamid ah qofku inuu xoolo xaaraana isticmaalo oo aan ilaahay u ogolaanin oo raali uga noqonin waxaynu tilmaami doonaa ilaa 6 qodob oo tilmaamaya cuquubaadka ka dhasha qofku markuu xoolo xaaraana ama xoolo xaraam ah quuto ama siyaalaha kala duwan xoolaha loo isticmaalo oo isticmaalo qodobka koobaad waa in ducadiisa la aqbalin qofka hadduu xoolo xaaraan cuno ducadiisa lama aqbalo si kastu ilaahay u bariyo gacmaha ugu taagto si kastu ilaahay ugu qayshado si kasto habeenkii intuu salaatu leel u soo kaco rabbi u bariyo ducadiisa lama aqbalo nabiga inoo sheegay kaleey salaatu wasalaam markuu arkay nin musaafir ah oo balanbalsan oo bood leh oo rabbi u qayrsan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi leh ayaa nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam see loo ajiibaya wuxuu cunaa waa xaaraan wuxuu xidhayahay waa xaaraan maaragtay xaaraan baa lagu quudiyo lagu koriyay sidee loo ajiibay nabiga kaleey salaatu wasalaam macnaha la ajiibi maayo ka dhiganta waa qodobka koobaad qodobka labaad qofku markuu xaaraan quuto oo xoolihiisa xaaraani ku jirto waa baraka la'aan xoolihiisa barakada laga qaaday yamxaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat ilaahay baa baabi'in subhanahu wa ta'ala xaq Allah ka baaba'ayaan wax baraka kuma haysto sagoo ay khasanaduhu u buuxaan ayuu haddana mamman yahay oo fikir iyo walwal iyo stress ku nool yahay qodobka saddexaad waa lacnadan yahay qofka hadduu xoolo xaaraan adeegsado ama xoolihiisa qayb ka mid ay xaaraan yihiin waa qof lacnadan weeye lacana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu lacnaday ribada qofka cuna iyo qofka qora ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam lacnaday ribaduna waa qayb ka mid ah xoolaha xaaraanta ah qodobka afraad ama ciqaabta afraad uu leeyahay waa in qabriga lagu cadaabo wal ciyaadu billah qabriga in lagu cadaabo ayay keenaan xoolaha xaaraanta ah nabiga kaleey salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyay wuxuu soo arkay nin wabi dhiiga ku dabaalanaya oo ku dhex jira mid kale dul taaganoo markuu kaniisiyada dhiiga ka soo dhex baxba uu ku dhufanaya dib ugu celinaya markuu weydiiyay waxa lagu yiwa dadkii xoolaha xaaraanta cuni jiray saaray ku ciqaabnaanayaan ilaa inta cadaabkii weynaa ay ka gaarayaan ciqaabta shanaad waa cadaab aakhiro wal ciyaadu billah aakhiro waxyaalaha ugu weyn cadaabka lagu galay ka mid tahay waayo waxani waa xaq bila aadan weeyaan oo nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam ragba xoolaha maalka ilaahay ayay gardarro iyo malafsi ku cuni doonaan wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam falahum an-nar yawm al-qiyamah maalinta qiyaamada dadkaasi naar bay leeyihiin nabigu kaleey salaatu wasalaam qodobka lixaad oo ugu dambeeya waa inaan sadaqadiisa la aqbalahayn qofku wuxuu haystaa hadduu xaaraan yahay ama uu isugu jiro xaaraan iyo xalaal oo aan la kala garanahayn qofkaas sadaqadiisa la aqbali maayo wax kastuu la buuxo hadduu masaajid dhiso iyo hadduu agoon wax siiyo iyo hadduu meelo kale wax ku bixiyo midna wixiisa la aqbali maayo nabiga kaleey salaatu wasalaam laa yaqbalu Allahu salaatan biqayri tahuurin walaa sadaqatan min ghuluul ilaahay salaad ma aqbalo ayadoo la dahaaro qaadan sadaqada ilaahay ma aqbalo xoolo xaaraan ah oo xaaraan kugu soo galay sadaqa ilaahay ka aqbali maayo waxaynu u dambaysiinaynaa isu dardaarmaynaa arsaaqada ilaahay baa bixiya qof walbana intuu siinaya asagaa garanaya fattaqullaha wa ajmilu fi talab qof adduunkan joogo dhimanaya asagoon arsaaqadiisi dhamaysan ma jiro marka qof walba intaad ilaahay ka baqdid inta ilaahay kuu kasay ee ilaahay ku siiyey sidii ilaahay ugu talagalay u isticmaal xaaraam iska ilaali. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.